السلام عليكم ما أنت موضوعنا وحوية حق aad ku leedahiin rageen maxaad idinku leedahiin xuquuqdaad leediin maxay tahay walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf markuu quraanku yiri xaq lagu leeyahay mid la mid ay leeyahay xaq aad ku leedahiin raggeena waxa kamida oo kowka ah in ay idinkula mucaamaloodaan mucaamalo wanaagsan وعاشروهن بالمعروف والله تبارك وتعالى دمرك دقا وناكسن كل دقما والنبي كان يقول صلوات ربي والسلام عليه خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رجب النبي يقول له صلى الله عليه وسلم وحكيري كإذن كفي عن رجي هداتين إذن كو خير بدن وأنك ريركي سوقو خير بدن شرع هذا نو في الصدى وحاله يدينك هذا مسؤول كا كوريجي دياري قبردي مصروف عرورت هذه مصروف مرشدي يدركي سي مركي شرط الدواء عساقا مسؤول كا هذا أما عركة كان أما دولك كان أما ماشي أدون تقل رير كان يأدو مسؤولية سكسارين وحاك كم إذا إنه سوى ناكسن ورقم وهذا لو ناكسن وكلها الله أيها كم إذا maxaan ku yiraahdaa hadal fiican oo wanaagsan oo gabadhii kula hadlo ayaa kamida waxa kamid ah in uu sida iminka la sameeyo ka ilaaliyo waa inuu haduu caweynayo soo jeedayo aqalkiisa iyo qoyskiisa la caweeya la soo jeeda maqaaxiyaha inta la fadhiisto 12 ku soo dhaadhacaya sida inuu gaar ka soo degay oo kale meel 12 ka habeenimo waa inaad markaad cishaa'iga tukato hadaadan hawl muhiim lahayn heerka kaale oo caruurta iyo qoyska xaaska u sheekay oo sheekadeeda dhageyso oo taada ha dhageysato oo mad idinkoo saa u wada sheekaystayo kala war qaatay in maxaan ku yiraahdaa marka la kala seexdo waxa kamid ah in maxaan ku yiraahdaa qofka dumari uu aad ninku indhaha ugu fiirsan qofkan waa qof bani aadam oo khaldamaya waxba ka dhacaya waxba ka khaldamaya hadalla ka soo dhacaya wax waliba maxaa saa ii tiri waxaa saad igu samaysay garnaqsi taagan xanaaqa marka uu ka batanaaga tumin sida loo tumo ximaarka oo kale rasuulku aad buu ula yaabay sallallahu alayhi wa sallam ma tumaysaan ka jaldil abdi buu yiri sida adoonka loo jeedaleeyo oo kale fiidkii hore fiidka dambana ma waxaad la aadaysaan firaashka weeshi aqli xumaa sida hayeelina garaacitaanka aad garaacaysaan yuusan noqon mid feerka jabiya mid laf baabi'iya wax dhibaato gaarsiiya wajigana ha ka garaacina ayuu yiri sallallahu alayhi wa sallam rasuulku markuu tilmaamayo dumarka sida ay yihiin iyo daciiftinimada ay qabaan rasuulku wuxuu yiri markaad garaacaysaan ha garaacina garaacitaan xoog badan ha habaarina oo walaa tuqabbiha dhihina waa shay aad u dhibaato badan ama wajigeeda aad habaarayso dhibaato aad gaarsiinaysa ha samaynina sida ayuu rasuulku yiri hana ka garaacina wajiga waa shayga ugu qiimaha iyo wanaaga badan allah loogu sujuuda bani aadamka lagu qaabila waa xubinta ugu qiimaha badan ee bani aadamka uu leeyahay sida darteed ayaa mamnuuca in la gubo ayaa mamnuuca qofka in laga garaaco ayaa mamnuuca in dhaabac laga gaarsiiyo xaaladaha soo dhanba sida darteed ayuu rasuulku yiri garaacitaanka aad garaacaysaan ha ahaada garaacitaan aan dhibaato iyo shaaq iyo dhib aan markaa gaarsiinaynin rasuulka sallallahu alayhi wa sallam markuu arkay naaga la tumay ayaa wuxuu soo istaagay minbarka uu yiri yaan la garaacin adoomada ilaahay naagaha ayuu ula jeeday qof walbana waxa la weydiinaya wixii la raaciyay deetana nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam ninka waxa la raaciyay guriga inuu ilaaliyo reerka dhaqo akhra waa la weydiinaya gabadha waxa la raaciyay caruurta iyo reerka iyo inta haysayna ka sii hooseysay waa wasiiru dakhilihi intana ay sii maamushay gaarka ah inay yana ilaaliso akhrina waa la weydiinaya noloshu markaa waxay noqotaa nolol iskabaysa hadduu ninkuna wixii loogu talagalay uu ka soo baxo gabadhuna wixii loogu talagalay uu ka soo baxo laakiin waxaad xasuusanaataan asalka guryuhu waxa uu ku dhisan yahay waa kalgacal waxa uu ku dhisan yahay waa naxariis labadaas asalku kuma dhisna xaqaygii iyo xaqaygii oo laba qof oo midba xaqiisa ilaashanayo aan lagu soo xadgudbin asalku wuxuu ku dhisay kalgacal nabigu calayhi salaatu wasalaam haweenaydiisii dhimatay ee khadiija ah ayuu xataa xoolo hadduu qalo hadduu cid wax siinayo wuu xasuusan jiray khadiija
asxaabteedii hilibka ah loo geeyay buu odhan jiray waa khadiijo dhimatay caashaa maalmihii dambe ka hinaastayoo nebigu uun islaantan dhimatay uu hadal hayo islaan qawla la cascas bay tiroo dhimatay maxaad ka hadalaysaan oo ilaahay kuugu bedelay mid ka khayr badan layguma bedelin buu nebigu ku yidhi mid ka khayr badan innii rusiqtu xubbahaa buu nebigu yidhi kalgacalkeedaaba laygu arsaaqay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam